طاولة ogtahay mise mala socoto in uu jiro 40,000 oo nooc oo kala duwan oo bariis ah dabcan haddii aad tahay dadka bariiska aadka u xiiseeya mise bariiska dabcan aadka u cuna si baa leedahay 40,000 oo nooc oo bariis ayaa intaad rabta ka dhexlan karaysa daawade ma ogtahay mise mala socoto asaasayaasha shirkadda Google ayaa rabay inay shirkadda ka iibiyaan shirkad la dhaho Excite qiimo dhan $1 milyan sanadku markuu ahaa 1999 dabcan shirkadda Excite ayaa waqtiyadaas iyana la aasaasay markuu ahaa 1995 iyana waxay ahayd shirkad internet balse aan idhaahdo shirkadda Excite ayaa diiday waqtigaasi inay shirkadda Google ay gadato balse dabcan maanta shirkadda Google waxay tahay shirkad ku fadhida qiimo gaadhay $530 bilyan oo doolarka Maraykanka ah inta waxaas dhigi karayaa shirkadda Excite way nasiib xumay waagaas inay gadato shirkadda Google ayay ahayd maantana shirkadda Google ayaaba ka qiimo badanba sida shirkadda waagaas ay u bandhigeen inay gataan daawada ma ogtahay mise mala socotaa inay shimbirtu aynan kaadin dabcan shimbirtu ma kaadiso balse way xaarta mise way shuban habka sidaa u taqaanto wligana Soomaalidu waxay tiraahdaa shimbirtu waxaa tansiib baaba leedahay waayo lacag baabaad helaysaa waa ayna Soomaalida kaliya tahay balse caalamka dadyo kale ay aaminsan yihiin arrintaas daawada ma ogtahay mise mala socotaa in dalka Botswana oo dabcan ku yaala koonfurta qaaradeena Afrika ay hoy u tahay maroodiyaasha ugu badan Afrika iyagoo in lagu qiyaasay 130,450 maroodiyaal ah ay ku nool yihiin waddankaas maanta daawada ma ogtahay mise mala socota in qaaradda Antarctica oo dabcan qaarad barafley ah aynan gebi ahaanba ayna ku noolayn shimbirta la dhaho gumaysta balse qaaradaha inteeda kale laga helo 6 qaaradood balse qaaradda Antarctica aan laga helin shimbirta la dhaho af Soomaaliga gumaysta mise Englishkana la dhaho oolka daawada ma ogtahay mise mala socota in biyaha kulul ay ka culus yihiin biyaha qabow daawada ma ogtahay mise mala socotaa in Global Peace ay sheegtay in waddanka Ghana ay tahay waddanka afraad ee Afrika ugu nabdoon sanadkan 2019 iyadoo soo gashay kaalinta afraad waxaana ka horreeyay wadamada Mauritius, Botswana iyo Malawi daawada ma ogtahay mise mala socotaa kalluunka magaciisa la dhaho shellfish luqadda afka Ingiriiska mise afka Ingiriiska ah uu yahay kalluunka ugu xawaaraha dheer dhammaan kalluunada isagoo ku dabaasha xawaare gaaraya 68 mayl saacadii mise 11 kilomitir saacadii dabcan waa xawaare aad u dheer daawada ma ogtahay mise mala socotaa inaad isticmaasho 17 muruq oo wejigaaga ah markii aad dhoola cadaynayso halka 43 muruq aad isticmaasho markii aad muruganayso mise aad cadhoonayso daawada ma ogtahay mise mala socotaa in dalka Maraykanku caasimadiisa koowaad ee ugu horreysay ay ahayd magaalada New York oo dabcan maantana ah magaalada ugu weyn dalkaas Maraykanka intii u dhaxaysay 1785 mise 85 ilaa 1790 waana muddo 5 sano ayaa caasimad dalka Maraykanka u ahayd maantana caasimadda dalka Maraykanku waa Washington